shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel ayaa taariikhda markii ugu horeysay abaalmarinadii ugu ballaaran uguna qaalisan oo gaadhiya 10,000 abaalmarinood u soo bandhigtay macaamiisheeda. Abaalmarinahaasi ayaa isugu jira guri si casri ah loo dhisay, geel, adhi, dahab, lacag, telefoon iyo weliba abaalmarino kala duwan oo qaali ah. Shirkadda Somtel ayaa barnaamijkan ku soo bandhigtay guud ahaan gobolada kala gedisan ee Somaliland. munaasabadda guud ee daafurka barnaamijka ku guuleysa 10,000 abaalmarinood ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarreeya shirkadda Somtel, wasiirro ka tirsan xukuumadda Somaliland, salaadiin, culimo, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha shirkadda Somtel Cabdinaasir Daawud, madaxa suuqgeynta ee shirkadda Somtel Khadar Cabdiraxmaan Cabdilaahi iyo madaxa waaxda ganacsiga ee shirkadda Somtel Samiir Ducaale. kanina waa qayb ka mid ah oo aan ugu talagalay maadaama dadku aanay ka wada tartami karin hal meel ku wada tartami karin, aqoon ku wada tartami karin, in qof kasta uu hadiyadaasi ay dhextaan u noqoto ninka miyiga jooga iyo ka magaalada jooga iyo ka lacagta leh iyo ka maataqaanaa lacagta hays intaba inay dhextaan u noqoto. halkaa waxay noogu qoran 10,000 oo hadiyadood. 10,000 oo hadiyadood ninbaa waxaa laga yaabaa inuu ku shurto 0.5 oo uu helo guri 60,000 oo dollar oo uu ku jiro qalabkii dhex yaallo oo aanay qaada ka maqnayn, qaad aanay ka maqnayn ayaan ugu talagalay inaan siido. marka runtii waxaan rabnaa wax bulshada wax ka tara. sanadkan markaan dhisaan gareynayna waxaan nidhi war bulshada wax kale oo ka duwan oo bulshadana wax ka tara ugana badan oo hal qof oo noloshiisa aynu wax ka bedelno ayaa wuxuu noo sameynayaa qiimo weyn noo sameynaya. 10,000 inuu ka bedelaana way kasii duwan tahay. marka waxaanu nidhi geela oo qayb ka mid ah iyo adhiga, guriga oo dhisan oo qalabkii wada dhex yaallo qofaa ku guuleysan doona insha allah. barateen waa shirkad mar kasta bulshada wax ku celisa, waxaanu jecelnahay macaamiisheeda insha allah si kasta oo aan u korin karno oo horumarkooda uga qayb qaadan karno inaan nooga qayb qaadano. wuxuu socon doonaa abaalmarintu waxay socon doontaa saddex bilood ama 10 usbuuc bay socon doontaa. marka waxa weeye usbuuc kasta ama toddobaad kasta waxaa lagu guuleysanayaa 1,000 hadiyadood baa lagu guuleysanayaa. waa 10 toddobaad iyo 10,000 oo hadiyadood. dhankoodayaguna halkaasi waxaa ka hadlay madaxdii dhaqanka ee ka soo qayb gashay munaasabadaasi, culamaa u diin, mas-uuliyiin ka socda shirkadaha isgaarsiinta ee Somaliland iyo Dahabshiil Group. sanadkan 10,000 malaka dambana waa 20,000. aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirkaddan qiimaha leh ee dalkan iyo qarankan u fikiraysa habeen iyo maalinba ee maanta soo bandhigtay. waa mucjisaan anigu arkaa marka runta la doonayo. waxaan u arkaa deeqsinimo, waxaan u arkaa shirkad dalkeeda iyo qarankeeda iyo bulshadeeda ka dhex ganacsanayso u faa'iideynaysa. anigu waan la yaabay kaarka markii lay keenay 10,000 oo hadiyadood. waa yaabo waxaan war 10,000 hadiyadood faraweyn aan nimanku waxaan celiya waa shakhsinimo, waa aniga aragtaydii wey. waxaan mar labaad la yaabay waxaanu bixinaynaa dhul, waxaanu bixinaynaa baabuur, waxaanu bixinaynaa xoolo nool. waan ku faraxsanahay shirkadda Somtel. haddaanay jiri lahayn Somtel waxaan aaminsanahay maanta internet haya midan heshay. marka waxa weeye yaa loo qaadan in meel gaar la ilaaliyo, inaynu shirkadaheena ilaashano ayaa fiican. xafiisyada loo ilaaliyo oo lagu eegin dawladuun in la maxay iyagana aynu la qabsano. marka anaguna ka urur ahaan aad baan ugu faraxsanahay wax noo soo kordhay inay 10,000 shirkadood maanta bixiso Somtel. anaguna waan ku dhiirigelinaynaa inay halkan ka sii badiyaan. runtii waa ku faraxsanahay inaad nagala soo qayb gashaan xafladda tan lagu bixinayo hadiyadaha abaalmarinta lagu bixinayo ee dahab oo ka mid ah qayb ka ah Dahabshiil Group oo runtii aad uga bedelay ka mid ah technology-gan noloshii caalamka oo dhan wax ka bedelay qayb.
dhankooda iyaguna munaasabadani waxaa ka hadlay wasiiradii kala duwanaa ee ka socday xukuumadda Somaliland oo ay ka mid ahaayeen wasiirka diinta iyo waqaafta wasiirka gaashaandhigga wasiirka isgaarsiinta aad baan u faraxsanay kulankan aynu ka soo wada qayb galay sharafta leh runtii haldoorkii iyo aqoon-yahankii iyo dhalinyaradii la isugu yimi iyadoo runtii shirkadaha ugu mudan ay ka mid tahay Somtel runtii maalkoodii geliyey inay dadka anfacaan haddii la yidhaahdo dee adeegan hufan isgaarsiinta oo aynu isaga la-aantii hawshii nagu adkaan lahayd waxaa laga yaabaa inaad wax ku barato waxaa laga yaabaa inaad aad qof ganacsi aad ku wado intaaba waxaa u soo jeeda har yaabeen rag iyo dumar baa u soo jeeda oo haddana kule maxaa kaa dhiman oo customer care baa lagu sameeyey waxaan aad ugu faraxsan inaan maanta kasoo qayb galo xafladan lagu daahfurayay abaalmarinta ay shirkadda Somtel ugu talagashay inay macaamiisheeda dib ugu celiso kala hore kale bilowda shirkaddu qayban ka ahayn anigu wasaaradahan aad baan soo dhaweynaa in shirkadaha isgaarsiintu waxay ka faa'iidaan macaamiisheeda qayb ka mid ah iyaga dib ugu celiyaan oo runtii ka mid ah qaybaha tartanka ka dhaxeeya shirkadaha Ismaan Axmed Ismaan Saab TV Hargeysa